Soomaaliyeed ee galbeedka ka ganacsada waxa lala socodsiinayaa inaanay hantidooda iska qasaaraynina inta ka horeysa cidii 15 bisha sida warka lagu jeediyay cid waliba ha ka faa'iideysato muddada gaaban ee allaale hay'adii ka imanaysa min Kismaayo ugu shaysa ilaa iyo Boosaaso inta igu baalayso dalka Soomaaliya wixii ka imanaya waa ay ka howlgali karaan laakiin deegaamada Hargeysa Burco Berbera Gabiley iyo Boorame hay'adaha fadhigoodu yahay ma iman karaan deegaanka. Alhamdulillah wasalaam lillah summa wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera. Halkani waa xafiiska gudida 33 ee SSC Khaatumo ee magaalada Laascaanood. ummadda Soomaaliyeed waxaanu halkan uga soo jeedinaynaa amar ka soo baxay gudiga wuxuuna u dhigan yahay sidan soo socota ku socota dhammaan cidii ay khusayso ujeedo amar lagu joojinayo dhammaan ganacsiga ka dhaxeeya SSC Khaatumo iyo maamulka Somaliland markaanu aragnay duulaanka iyo dagaalka cadownimada ah ee maamulka Somaliland ku soo qaaday dadka yaga iyo deegaanka yaga SSC Khaatumo ayagoo aan tixgelinaynin islaamnimo Soomaalinimo iyo derisnimo midnaba laga bilaabo 15 bisha afraad 2023 maamulka SSC Khaatumo wuxuu joojiyay dhammaan ganacsigii ka dhaxeeyay Somaliland iyo SSC Khaatumo sidaas darteed marka laga bilaabo taariikhda kor ku xusan waxa reeban in wax ganacsi ah inooga yimaado dhinaca maamulka Somaliland sidoo kalena mid ku socda ka gudbo deegaanada SSC Khaatumo sidoo kale laamaha ammaanka ee maamulka SSC Khaatumo waxa la farayaa inay u diyaar garoobaan gudashada waajibkaas marka la gaaro taariikhda loo cayimay waxaan kaloo halkan ka xusuusinaynaa cidii ay khusayso waxa jiray amar hore oo ka soo baxay gudiga 33 ee SSC Khaatumo kaasoo lagu mamnuucayay inay waxay adihi ka timaad oo ka howlgasha maamulka Somaliland soo gasho deegaanka SSC Khaatumo mar labaad waxaanu ku celinaynaa inaanay wax hay'ada oo ka howlgasha dhinaca Somaliland aanay iman karin deegaamada SSC Khaatumo kana howlgeli karin arintaasina ay tahay mid madnuuca oo la joojiyay mar hore haddana waa ku celinaynaa sidaas darteed ciidamada ammaanka ee maamulka SSC Khaatumo waxa la farayaa inay talaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan cid kasta oo ku soo xadgudubta ama wiirtaas la bixiyay wadanaha golaha ka tirsan gudiga ay ka talinta gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ee Laascaanood fadhigiisu yahay sida uu sheegay yaa gudigu ku waafaqsan yahay warkanina waa war gudida ka soo baxay cid waliba oo ay khusaysaana waa sida loo sheegay inay u qaadato way una hoggaansanaato waxaan maqalay hay'ado meelaha soo galgalaya oo deegaanka iyaga imaanaya oo Hargeysa iyo meelo kamida deegaanadooda iyo fadhigoodu yahay lama aqbalayo hadhow wixii ka yimaada iyaga mas'uuliyadooda qaaday lama aqbalayo horena waa loo sheegay haddana waa cusboonaysiinayna hay'adahaasi inay ka waantoobaan imaatinka deegaankan laakiin dalka Soomaaliya intiisa kale oo dhan hay'ad allaale hay'adii ka imanaysa min Kismaayo ugu shaysa ilaa iyo Boosaaso inta igu baalayso dalka Soomaaliya wixii ka imanaya waa ay ka howlgali karaan laakiin deegaamada Hargeysa Burco Berbera Gabiley iyo Boorame hay'adaha fadhigoodu yahay ma iman karaan deegaanka ilaa iyo waqti dambe mooyaane hadda ma iman karaan sida loo sheegay way waxa soo raaca ganacsiga dadka Soomaaliyeed ee galbeedka ka ganacsada waxa lala socodsiinayaa inaanay hantidooda iska qasaaraynina inta ka horeysa cidii 15 bisha sida warka lagu jeediyay cid waliba ha ka faa'iideysato muddada gaaban gaadiidkeeda iyo hantideedana ha ka daasato inay xuduudka yagan ama soo mariyaan ama soo geliyaan cid xil ka saaraya hadhow ma jirto waxa loo qaadanayaa amar jabin iyo fadqalalo iyo waxaan dadka deegaankan dan u ahayn baa loo qaadanaya
cid waliba hantideeda ha haysato meeshay u ganacsi doonanayso ha la aado meeshay u dhigayso hor bay u tahay dalkaas Soomaaliya waa ballaaran yahay laakiin dhulkan aanu anagu joogno cid xagga iyo xagga toona uga gudbaysa ma jirto ay dhamaato bisha 15keedo saacada ku xigta marka la gaaro wax gaadiido xagga iyo xagga toona u gudbaya ma jiraan dabcan uma gudbayo ما جرى ركاب حتى بابورت بساسك ركاب كقاعدة لما أقبله واحد يرو دم وددا كتير يا متر إيران وحي أنت أنو لك الدجنوي أنت أنو لك الدجنو أنا كحكومة سوماليدنا وين قاعدة أمريكا ميل كستا كتماتو بيدوا كتماتو كزماعة بارديرا كتماتو هذا بنادر كتماتو ميل شيء دونتو كتماتو حرديرة يو هوبيا كتماتو ديرتو وإن احترامان هذا الكلام تشيدينه هذه عندي احترامي ويدا يدا تغانا ماشي واحد وركيدا كدون